Muuqaalkan waxaan ku baraynaa qaabka loogu duubo flashkaaga Windows. Haddaba Google Imaw waxaa ku qortaa application-ka loogu talagalay in operating system loogu duubo flashka. Waxaa la dhahaa magaciisa Rufus ayaa la dhahaa. Markaa soo degsanaa rabnaa waxaa imaanaynaa halkaas linkigaas click ku siinaynaa si aan application ula degno. Wax yar kadib application noo degayaa waa mid yar oo kooban. Application noo soo dego haddana waxaan soo degsanaynaa Windows file-kii Windows 11 waxaan soo degsanaynaa ISO file filekeeni aan flash ku duubi lahayn Windows 11 ka soo degsanaynaa. Website-ka waxaa galaynaa Microsoft kaas u koreeyo. Kadib markaa website-ka aan galno waxaan ka dooranaynaa ISO file ayaan ka dooranaynaa. Markaan xagga hoose u soconaynaa xagga ugu hooseysa tagaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay Windows 11 disk ISO file ama disk image ayaa tagayna. Kadib waxaa dooraynaa luqadii markaa doorno halkaas ayaa ku dhufanaynaa. Intaa kadib waxaan kasii dooranaynaa meeshaas isaa u degsano file-ka 64 bit dowlad ayuu ku dhufanaynaa. Kadib waa save garaynaynaa markaa wuu noo soo degayaa ilaa size-kiis waxaa waaye 5GB intuu degaaya ayaa sugaynaa markaa waxay ku xirantahay internet-ka xawaaraha haystid. Flashka ayaa soo gashanaynaa markan flashka aan hadda ku duuban rabo flashkaas computer-ka soo geliya flashkii labadii file aan soo degsan oo kuwana Windows-gii iyo sidoo kale application-kii flashkayga ugu duubi lahaa. Marka sidaa darteed markaa waxaan furaynaa marka saa flashka ugu duubno iska hubi inay flashka kugu jirto si sax ah. Kadib markaa application-ka fur markaa furno halkaan uu keenaya application ku soo daarmo. Halkaas waxaa soo galayo Windows-gii file-ka ayaa soo galayo. Meeshas u koreys waxaa flashka magaceedii. Sidoo kale flashka hadii wax kugu jiraan oo xog way kaa tirtireysaa maadaama Windows lagu duubayo xogtaada meel ka dhiga flashka. Halka waxaa soo galaya marka ISO file-ka soo galaynaa select ayaan dooranaynaa. Hadda aniga download-ka ayuu nagu soo degay adigu kuu soo bixi waaye file-ka meeshuu yaala tag aniga hadda download maadaama aan kusoo degsan halkaas inuu yaalaa. Kadib waa furaynaa marka hadda waa soo qaadanay canjaladeeni Windows 11-kii. Kaliya waxaa noo dhiman hadda in aan duubno halkaas laptop-yada qaar waxay kala yihiin MBR iyo GB ay kala yihiin anaga midka uu ku soo baxo waxaa ka bedelin halkaas dooro marka. Halkan wuxuu na siinayaa marka ogeysiis ah in dhammaan xogta ku jirto ay la tirtiri doono si loogu duubo Windows-gan flashka. Marka waxaa leenahay yes ayaa leenahay. Kadib haddana sii hubiyo le xogta ku jirto way baxaysaa. Marka xogtaada waa inaysan flash kugu jirin marka. Marka hadda yes ayaa leenahay. Intaa waxa ka dambaysa hadda wuu bilaabanayaa oo flashkiina waa lagu duubaya xogaa ayay qaadan doontaa waxay ku xirantahay marka xawaaraha computer-kaada intuu ku dhameynayo. Marka video waa boobsiinaynaa marka hadda waa dhameynay waa diyaar marka hadda waxaa flashkaaga ku duubatay Windows 11. Step-ka labaad ee casharka waxaan baran doonaa qaabka Windows looga bedelo computer-ka maadaama flashka hadda noo diyaarsan tahay computer kasta oo aan gelino oo Windows u baahan aan ku shubi karno. Marka hadda step-ka labaad ee casharka la soco waxaa ku baran doontaa qaabka loogu duubo computer-ka.